habeen kamida habeenada ayaan seexan waayay waxana la seexan waayay warwar iyo walbahaar iyo waayo igu furnaa kabacdina waxaan go'aansaday inaan gobasha ka kaco oo dibadda u baxo hawadana soo qaato soona lugeeyo anigoo lugeynaya xaafada dhexdood ayuun baan si kedisa waxaan ula kulmay masaajid fardad kamida albaabadiisii furan tahay naftaydii baa igula faqday oo maad masaajidkan gashid ood cibaadaysatid si aad ma garanaysayay humuumta iyo warwarada iyo ciriiriga aad dareemayso iyo culayskaasi ilaahay kaaga fududeeyo salaada raaxo uga hesho wuxuu yidhi markii aan masaajidkii galay ayaa waxaan kula kulmay nin xagga qiblada u jeeda oo ducaysanaya oo ooyaya oo ducada aad ugu celcelinaya codkiisii markaan maqlay iyo duruuftiisii uu ilaahay weydiisanayay ayaa intaan joogsaday waxaan go'aansaday inaanan salaadba tukani horta isagu intuu ducada dhammaysanayo aan sugo wuxuu yidhi waan sugay markuu ducadii ka soo jeestay ayaan ku yidhi wuu yidhi maxay tahay warkaagu walaal waxaan iigu jawaabay ilaahay baan ku dhaartay diin baa isku kay dul fuushay duruuf adag oo ilaahay uuni ka warrami karaana way ila deristay waxaan go'aansaday inaan duruuftaa dad bini aadmi iyo makhluuq aanan u bandhigan een khaaliqu asamaawaati waalard aan u bandhigto dabeedna wuxuu yidhi waxaan ku idhi deynta lagugu leeya waa imisa ma garanaya ninkan inuu nin taajira oo laban yahay wuxuu igu yidhi 4,000 oo lacagta waddankaa ay joogaana 4,000 4,000 ayaan gacanta baaban ku hayo waan u dhiibay ninkii wuxuu yidhi aad buu u farxay waxaanad moodaysay farxad daraaddeed inuu duulayo aad buu u farxay wuu ii duceeyey in badan waanu ii mahadceliyey wuxuu yidhi markaan arkay walaalkaa ilaahay hurdada iiga soo kiciyey ee duruuftiisa inaan ka jawaabo ama rabbi aan halkaa ugu soo galay ayaan go'aansaday buu yidhi inaan siiyo business kaarkaygii ama waxaan loo yaqaano bidaaqat alcamal dabeedna waxaan u dhiibay kaarkaygii ayaan sidii u dhiib oo telefoonkaygii iyo xafiiskaygii iyo adresskaygii waxay ku qoran waxaan ku yidhi kana qaado haddiiba ay dhacdo inaad mar uun ii baahato ha ka warwareegin hana ka warwarin albaabkaygu wuu kuu furan waxa yaab leh waxaan malaynayay buu yidhi ninkaas odaygaah inuu ku farxo siduu tanba ugu farxay laakiin miyaad garanaysaan wuxuu iigu jawaabay wuu yidhi laa yaa akhi jazaaka allahu khayra laa axtaaj ilaa hadihi albitaata ilaahay kaa abaaliyo walaal laakiin wax baahiyoon u qabo kaarkani ma jirto wuxuu yidhi waxaanu iisii raaciyey mar kasta oon baahi dareemo ama duruuf tan oo kala ah iyo kuwa ka waaweyn iyo kuwa ka yaryarba aan dareemo waxaan haystaa albaab aan xidhmin وباب رجائه مفتوح لكل عبد يسأل جل جلاله الباب إلهي والباب أخرى أدون كستا ووحويديسته إلهي وانا له وحويديسته وان إذن سينا يا وحويديسته وان إذن سينا يا وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان غريب إلهي وينودويه وحويان غريب مجيب الدعوة وألدو الله بريجين يا مقرن سايي إله توجستيننا دقدقين وقع أقبلية مرتين شروطه دعاء إيو طريقه دي لن ما مرنا وحيري مركي
aan intaa arkay iyo ninkaasi dareenka uu leeyahay ayaa waxaan xasuustay buu yidhi xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam uu rasuulku yidhi low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulih larazaqakum kama yarsuqu tayr taqduu khimaasan wataruuxu bitaana haddaad ilaahay u tala saaran lahaydeen tala saaradkiisa dhabta ah allana wuxuu idiin arsaaqi lahaa sida uu shimbiraha u arsaaqo oo waa sidee waxa weeyaan marka ay subaxii waa bariistaan iyagoo bog laalan oo baahid ma garanaysayay qaba ilaahay wuu soo siiyaa risiq waasaca oo ay ku noolaadaan galabtiina waxay soo caraabaan iyaga oo dharagsan oo nimco ilaahay nuxurku waxa weeyaan waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbuh cidda ilaahay tala saarata ilaahay isagaa ku filan